bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu kuleenahay YouTube ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadekan idinku soo maqana waxaa ka mid noqonaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza Cabdi Barre oo dhabarjabintii ugu cuslayd uguna weyneed ku sameeyay nidaamkii dalka ka talinayay 5 sano ee la soo dhaafay oo ay hogaaminayeen Fahad Yaasiin Xaaji Daari iyo sidoo kale Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxay xabsiga ka sii daayeen Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo xabsi guriga ka dhigtay dowladii hore ee dalka oo Farmaajo hogaaminayay waxa ay kadib ka dhigeen wasiirka awqaafta iyo sidoo kale arrimaha diinta ee xukuumadda Xamza falaqan ayaan daawadayaal ku sameyn doonaa Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur waxa uu iminka u baadi goobaya cadaalad sargaalada Graan Tahliil Faarax oo ku maqan gacanta saraakiishii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo ugu horeeyay Fahad Yaasiin Xaaji Daari cadaalad raadinta uu ku dhawaaqay inuu sameynayo Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur ayaa barnaamijkeena daawadayaal idinku soo gudbi doonaa Fahad Yaasiin Xaaji Daari iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa aaminsan in Mukhtaar Robo uu ka argudan karo waxayna leeyihiin arintan arin la eegan karo maaha arin la daalacan karana maaha Fahad ayaa Farmaajo kula talinaya in uu ka baxo Muqdisho oo uu tago Qatar Dooxa halkaasna uu noloshiisa ku aamino maadaama halis amni oo xoogan ay ka jirto Muqdisho UPD ama damul jadiidna ay iminka isku bahaysanayaan sidii ay uga argudan lahaayeen ayaga wixii walaal daawadayaal ku soo kordha arintan waa barnaamijyadeena daawada saaxiib meel waliba joogto soo dhawo muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo bir subscribe inoo sar channelka Fragam Laka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino oo ku maasan tahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku horeynne Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo baydhabo laga soo xiray 2018 bishii December ayaa hadda waxa uu yahay mid la sii daayay oo xuriyad waxa siiyay dowladda uu hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud Xamza Cabdi Barre uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur waxa uu ahaa hogaamiye ku-xigeenkii Al-Shabaab ugu dambeyn waa uu iscasilay waxa uu ka soo tagay shaqadii uu ka hayay Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya waa ay aqbashay isku soo dhiibitaanka uu sameeyay Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur laakiin waxay xabsiga u dhaadhicisay markii uu damcay in uu markaasiba noqdo musharax madaxweyne dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo sidoo kale saaxiibkiisii siyaasadda Fahad Yaasiin Xaaji Daari ayaa isku raacay in Robo la dhigo godka jilcow hay'adda NISA ay damaanad qaado noloshiisa halkaasna lagu hayo xabsi guri laga dhigo baydhabana laga soo xiro ugu dambeyn waa ay hirgashay oo Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur waxa baydhabo ka soo xiray ciidamo Itoobiyaan ah waxa laga soo dejiyay Muqdisho ilaa iyo hadda waxa uu ku xirnaa amaba uu xirnaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur dowladii hore ee Farmaajo iyo Fahad hogaaminayeen ayaa waxa uu xirnaa muddo 3 sano ah oo xabsi guri ah waxaase iminka loo magacaabay wasiirka diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee hogaaminayo Xamza Cabdi Barre Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur ayaa hadda waxa la eegayaa qaabka uu la falgalo siyaasadda Soomaaliya waxa sidoo kale isha lagu hayaa qaabka uu uga argudan karo nidaamkii dalka ka talinayay 5 sano ee la soo dhaafay ee xabsiga isaga u taxaabay uuna hogaaminayo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur hogaamiye ku-xigeenkii hore ee Al-Shabaab ayaa haatan waxa uu damacsan yahay in uu cadaalad u baadi goobo shakhsiyaadkii awoodda dowladnimada lagu dulmay intii uu Farmaajo ka talinayay madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur ayaa daneynaya in uu cadaalad horkeeno shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilkii iyo afduubkii lagu la kacay sargaalada Graan Tahliil Faarax
ikraan waxay ahayd gabar da'deedu ay tahay 23 waxa ayna ahayd madaxii internetka ama tiknoolajiyadda ee hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA. dilkeeda iyo afduubkeeda ayaa soo shacbaxay wixii ka dambeeyay September sanadkii hore 2021 xilligaas oo NISA ay ku dhawaaqday in ikraan ay dileen sidoo kalena ay afduubteen dagaalyahanada Al-Shabaab way iska beenisay warkii ka soo baxay hay'adda NISA waxayna sheegtay inaysan iyagu warkan u haynin wax jawaab ah isla markaana warkan uu yahay mid aan sal iyo raatoona lahayn. waxay Al-Shabaab iska fogeeyeen dilka Ikraan Tahliil Faarax xilligaas waxaa dilkan lagu eedeeyay oo si toos ah dusha looga saaray saraakiishii hogaaminaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo ugu horeeyay Faad Yaasin Xaaji Daahir. sidoo kale waxaa kiiskan ku weelinayay eediisa shakhsiyaadka kale Yaasin Cabdillaahi Maxamuud Yaasiin Faray Cabdillaahi Aadan Kulane iyo sidoo kale ninka kale ee lagu magacaabo Cabdiqani Dhiirane wadna qabad. waxaa kiiskan uu yahay mid xasaasi ah sidoo kalena leh markaasiba xamaasadiisa. shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay yihiin kuwo dhinacooda ka baadi goobaya cadaaladda loo raadinayo Ikraan Tahliil Faarax oo ah maqanad ilaa iyo hadda la leeyahay muddo hal sano ah wixii ka dambeeyay 26 Juun sanadkii hore 2021. Ikraan muddo hal sano ah ayaa u go'ay ilaa iyo haddana warkeeda iyo sidoo kaleba hadalkeeda lama hayo waxaana qoyskeeda ay ku walwalsan yihiin kiiskeeda. waxa ayna dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud oo majara u ay ka codsanayaan in uu markaasiba kiiskan cadaalad u raadiyo. Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa sidoo kale kiiskan waxaa kala dardaarmay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Injineer Maxamed Xuseen Rooble kaas oo geed gaaban iyo mid dheerba u koray cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil Faarax. shakhsiyaadka ku eedeysan haatan Ikraan Tahliil Faarax dilkeeda ayaa waxaa laga yaabaa inay ka soo muuqdaan hay'adaha garsoorka bilaa ay nagu soo wajaan ama waxa ka dambeeya sanadka 2023. Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo wasiirka diinta iyo waqaafta laga dhigay ayaa haatan siyaasiyiintu waxay leeyihiin waxa uu dhaqaaqaya cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil Faarax waxaana la leeyahay Mukhtaar Roobo waa uu ka gungaari karaa hadafka ah ama yoolka ah in Ikraan cadaalad loo helo. waxaase siyaasiyiinta qaar ay daciifinayaan aragtida ah in Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo cadaalad u raadinayo Ikraan Tahliil Faarax. Ikraan waa dhibanad ilaa iyo hadda maqan waxaase kiiskeeda isku bahaysanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Xamza Cabdi Barre, qoyskeeda, agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo haatan laga dhigay wasiirka diinta iyo waqaafta iyo arrimaha la dagaalanka xaq jirka. Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xamza Cabdi Barre ayaa waxaa la eegayaa qaabka xilligan ay uga howlgalaan kiiska Ikraan maadaama ay shacabka Soomaaliyeed u soo dusiyeen kiiska amaba maadaama shacabka Soomaaliyeed ay u soo dusiyeen magacyada xubnaha ka midka noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre. Soomaaliya waxaa ka jirta dowlad laakiin aanan isku hoolin shakhsiyaadka dulman in cadaalad loo raadiyo. Xasan Sheekh Maxamuud xilligii uu mucaaradka ahaa waxa uu si aad ah farmaajo ugu dhaliili jiray in uu shakhsiyaadka banaysanayo dhiigooda. haatanse waxaa la eegayaa qaabka isaga oo arintan ula falgalo ama qaabka isaga oo arintan uga howlgalo. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza Cabdi Barre waxay warar daawadayaal ku soo korray kiiska Ikraan iyo arrimo fara badan oo ku saabsan dowladda. barnaamijyadeena xiga ayaan idinku soo gudbi doonaa. daawada saaxiib meel waliba joogto soo dhawo muuqaalkan like saar siina share garay inagu soo biiro subscribe inoo sar channelka faraga markaasi durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino. waa ku maasan tahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb. tan iyo barnaamijkana kiisa kale daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.